أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما خيرت يوتيوب كوين سلامي cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sidee aad usoo degsan lahayd Photoshop CC 2017 marka aan ku tusiyo sida aad usoo degsan kadibna waxaad furaysaa browserka isticmaalaysa ayaad furaysaa kadibna markaad furto waxaan idin dhigayaa linkii description-kan labadan link ayaa idin dhigayaa hadduu computerka yahay 32 bit ayaad ku shubeysaa hadduu yahay 64 bit 64 bit ayaad ku shubeysaa kadibna anaga hadduu computerkan waxaa ku jirto 64 bit kadibna right click kadibna copy ayaad leedahay kadibna markaa copy aad dhahdo paste ayaad ku leedahay meeshani kadibna enter dheh kadibna wuu israadinayaa xoogaa yar ayuu qaadanayaa hadda 5 second 4 second 3 second 2 second 1 second kadibna escape ayaa meeshan kusoo qornaysa kadibna escape ayaad ku dhufanaysaa markaa ku dhufato si automatically ahaan ayuu kuugu soo qoraya aniga hore ayuu igu jiray marka si aan waqtiga aan usoo gaabiyo darteed ayaan marka usoo dhowlgalay sida hadda aad ugu jeedo meeshan waa 1.35 GB kadibna haddaad dhahdo starsi download marka waa kana uu shaqeynaya windowga kadibna hadda cancel iska soo dheh kadibna waa kana marka windowga hadda sidan ayuu kuugu soo baxay aniga labada xaba ayaan soo dhowlgalaysaday marka midkan waa 64 bit kan waa 32 bit marka 64 bit hadda computerkan ayaan fiirinaya kadibna properties ayaad right click ayaad dhigaysaa kadibna properties ayaad leedahay kadibna meeshan waxa kuugu jira ayaad fiirinaysaa hadba window kuugu jiro hadduu 32 yahay 32 ayaad ku shubanaysaa kadibna meeshan hadda winrarka ayaan extract ayaan ku sameynaa kadibna right click ayaad leedahay marka right click aad dhahdo kadibna extract to Adobe Photoshop ayaad ku dhufanaysaa kadibna markaa ku dhufato si uu feelasha uusan kala bixin marka waa kan hadda sidaad ugu jeedo marka waa uu dhameynayaa hadda end ayuu leeyahay kadibna markaad ku shubto kadibna meeshan waa kana Adobe Photoshop marka waa kana markaad dhahdo aad furto setupkiisa waa kana marka hadda aan ku tusiyo sida aad u karaagaleyn lahayd marka waxaan Syria malahan marka karaag ayuu leeyahay marka karaagiisa aniga hadda waxaa idin soo dhigaya megaha ayaa idin soo dhigaya marka megaha marka aad furto kadibna waa kana waxaan ku qoray Photoshop CC aan ku qoray kadibna meesha aad ka soo dhowlgaleen lahayd waa wada taqaaniin kadibna download ayaa leedahay kadib marka download aad wuxuu sameynayaa hadda starting ayuu isku sameynayaa marka sidaad ugu jeedaad waqtiga uu soconaya 32 marka sidaas fudud marka feelkan uu yar yahay waana karaagiisa marka hadda waqtiga zaid noogu dheeraanaya marka sida hadda waa kana uu soo download faylka oo karaaga ah kadibna markuu faylka oo sidan kuugu soo download gareeyo adiga marka waxaad sameynaysaa right click aad dhigaysaa show in folder meesha ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa marka folderkaas ayuu si toos ku geenayaa direct kadibna catch ayaan ka soo leenahay kadibna desktop-ka ayaad soo dhiganaysaa marka waa kana karaagiisa marka sidaas sahlan ayaad ugu soo download gareysan kartaa misna karaagiisa waa kana insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo cashirka kale waxaan ugu hadli doonaa sida aad ugu install gareyn lahayd marka ha ina ilaawin kanaalkeena inaad subscribe iyo like iyo share aad ku sameyso waa kanaal cusub oo lagu magac daray Anwar channel marka waxaan ka codsanayaa walaalkayga muslimka ah meel walba aad joogtiin inaad kanaalkan aad subscribe iyo like share aad dhahdaan si anigana maanta waa idinku sameynayaa like iyo share iyo subscribe inta baan idinku wada sameynayaa marka sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh